dhaqdhaqaaq xoogan ayaa ka jira maanta suuqyada lagu iibiyo xoolaha. Halkani waa suuqa ariga ee degmada Dayniile. Dadka ayaa ku howlan kala iibsashada ariga iyo idaha. Istaahil Maxamed waxay ka mid tahay ganacsatada halkan ku iibiya ariga. Xooluhuna maanta aad bay u tiro badan yihiin. beesada aan ku soo gadnay gobolka uga keenay iyo mid hadeertan cimilada hadeertan meeshan uu joogana farqi weyn baa u dhaxeeya. sanadkii horena farqi weyn baa u dhaxeeya. sanadkii hore xilli abaaraha la soo maray. xilli abaarta markii la soo maray xooluhu ma badnayn. Waxa dhiig lu neefka oo dhiig baa la yiraahdaa dhiigga neefka loo ma badnayn. arigu waa ari yar yar buu iska ahaa oo macnaha aan dhiig badnayn. dadkuna waa baahnaa xoolahoodu lacag bay ku rabeen oo waxa la wixii la yiraahday gadanayeen. hadda ilaahay barwaaqo dhigay nimca carrada noqotay madar baa ku shumay beeri baa u bislaaday. maaragtay ilaahay duu ku roonyahay waa nimcaysteen ariga waa u dhalay wax kasta nimca yeesheen neefkii lagama soo gadi karo. qofkii Soomaaliyeed maanta shilin yar helayna xooli baa dhiig yeesho siiri waa doonay marka xooli buu doonay xooli buu keenay xooli hadii la keenay meeshan la keenay wax beec ah kuma aan hayno oo tiro badan mid kale xoogaa yar oo maanta suuqa dhaqdhaqaaqa qofka calaf u galo baan uga dhex jeednaa oo wax yar oo maaragtay ah dhaqdhaqaaqan way u jeednaa laakiin maalmahan hadda xoolaha soo dejinay waxba dhaqdhaqaaqa suuq ma lahayn. hawsha dalaaleyda ayaa ah mid ka duwan maalmihii la soo dhaafay. aadan salaad oo dalaal ah ayaa inoogu waramay qiimaha la kala siinayo ariga. arigu qaali weeye sidii safaraydu ay rabtana ma ahno waa dhacsan yahay asaga isjabiyay adiga 180 oo u badan yahay ariga birimadiisu 70 arigu waa laba dhinac leh 130 waa galgaduud iyo madug iyo halkaas xaqana 200 180 170 marka sidaas darteed dhibka jira waxa waaye suuq la'aanta. Siraad Yuusuf oo suuqa ariga ka iibsanaysay ayaa sheegtay in qiimaha ariga uu qaali yahay marka la barbar dhigo sanadkii hore. maanta waxaan soo aadnay waa u jeedaa waan faraxsanahay maanta soomana barina ciid waaye ma sha Allah waxaan soo doonanay xoolaan soo doonanay xoolihi ma sha Allah xoogaa qaali ah wallahi iidii hore xoogaa ka jabnaa hadeer xoogaa xoolaha waxa moodaa inuu qaali yahay maanta aakhir yoom ay tahay oo bari ciid ay tahay xoogaa waxa moodaa inuu qaali yahay. udxiyadu waa dhacdo sanadeedka ugu weyn adduunka oo la qol xoolo tiro badan waxayna ka mid tahay tilmaamaha astaamaha lagu garto maalmaha farxadeed ciida Carafo.